reer khaatumo iyo reer maakhir calankan calan nooma noqon karo waxaan saaray x country negative x calankan baasna ka daaya sababtan waxa weeyaan saan horena kuku sheegay calan diinteena ka soo horjeedo umaadareyaalo naka daaya sanadkan ku sawiran waa xaaraan naka fogeeye sayidka waan jecelnahay waa u ducaynaynaa ilaahay jannada ka waraabi wuxuu ahaa halyey soomaaliyeed wuxuu ahaa qof soomaali oo dhan inay jeclaato qasab tahay oo ay ku faanaan laakiin sanabka naka daaya tan labaadna saan horena kuku sheegay calankeena waa inuu ka duwanaadaa calamada kale oo ummadda Soomaaliyeed especially kan Puntland waxaa lana ku waali doonaa fiir cagaarkii baa hoos la geeyay dhexda la geeyay buluug baa cadaan war waxaan waa koobi calanku waa kii Puntland waanad koobi garaysan war hada inta gabdho calankan bedel oo kursin waayo calanka wuxuu noqon doonaa wejiga maamulkeenana waa inuu qurux badnaadaa sida hadlaheena oo cajiibka ah wada diamondka ah oo aad moodaysid inay yihiin xorolcaynka dunidan ee u qurux badan yihiin waa inuu qurux badnaada calankeena calankan samaysanayna waa inuu noqdaa mid la wada leeyahay oo beelaha walaalaha ah oo wada degan kuna midaysan dhistaanka maamulkan cusub ay iska dhex arki karaan kana dareemi karaan lahaansho ugu dambeyn calankeena waa inuu noqdaa mid ka turjumi karo qadiyadeena oo ah inaanu Soomaalinahay una taagannahay midnimada ummadda Soomaaliyeed haddaba calankan saan ka dhigno maadaama calankeena hore khaatimo blue lahaa dhinac blue ka dhigno kii maakhirna maadaama cagaar lahaa dhinaca kale cagaaran ka dhigno shakadan waxaa la dhahaa 50-50 dhexdana aan ku sawirno circle ka cadna aan ku kor sawirno gacan 5 farood leh 4 laaban yihiin midna taagan tahay barahana kala midab baan ka dhigi doonaa calankeena markaas saan aw ekaado haddaba macnaha calankan aan sharaxo bluega wuxuu ka turjumi doonaa Soomaalinimadeena nuskii khaatimo iyo badda weyn oo cusub oo aan heleyno dacban geynaya iyo janan kusinaya baasha ala barto cagaarkana wuxuu represent garayn doonaa reer maakhir wuxuu kaloo represent garayn doonaa barwaaqada dhulkeena taalo hadday xoolo tahay hadday beero tahay hadday shidaal tahay hadday tahay macdan wixii khayraad aanu haysano ay nooc oo cagaarka represent garayn doonaa circle-ka cad wuxuu ka turjumayaa nabadda iyo amniga yaalo dhulkeena iyo qalbi wanaaga dadkeena sawirana macnaheedu waxa weeyaan kow gacanta waa madowga wuxuu represent garanayaa afrikaanimada gacanta waxay leedahay 5 farood 5 farood waxay ka turjumayaan 5 Soomaaliyeed saad u jeedaana faruhu waa kala nooc taana waxay represent garanaysaa diversity-ga ummadeena yacni dadkeena waxay ku kala duwanaan karaan midab waxay ku kala duwanaan karaan qabiil waxay ku kala duwanaan karaan fikir laakiin si walba u kala duwan yihiin waa 5 farood oo hal gacan ku yaalaan kuna midaysan kow islaamnimada ولا إله إلا الله labana Soomaalinimada that's why hal far oo tii shahaadada ah u taagan tahay bluena u tahay marka aan waxaan ku talinahaa calankan aan qaadano haddaad jeceshihiinna waxaan ku dari karnaa casaan xagga hoose casaankaas wuxuu ka turjumi doonaa dhiiggii shuhadada daraawiishta xilligii sayidka iyo qalasyada jamaahiirta 2023 oo u daatay horeynta dhulkeena iyo midaynta dadkeena iyo dhiigga hadda kadib u daadan doona difaaca diinteena dadkeena dhulkeena dalkeena maalkeena iyo qadiyadeena marka ani lawdan calan baan dhisay fikirkiina ku bixiya fadlan sii gaarsiiya maamulka iyo ergooyinkana gaarsiiya